gabar haddii tahay wiil xanaaq badan carab badan xanaaqaada zaa'id ay tahay xataa saameynayso dadka inay kugu nacaan wiil iyo gabarba aanan ku arki karin kaliya ma aha inay xanaaqsan tahay ee wejigaaga muuqaalka haddii arkaan dee ka cararaayaan oo qof walba ku dhibsanayaanba laakiinse maalin maalmaha kamid a ee soo baxaysa gabadh aragtidaasoo kale aan ku arkaynin oo noloshaadao dhan bedelayso oo daawade waa qiso cajiib ah oo aad u qurux badan qaas aana ragga cajibi doonto markii laga soo gudbo gabdhahana waxaa rajeynaa inay ku cibri qaataan waa ogahay wiilasha qaar inuu romaasiga dhibsadaan laakiin saaxiib yaal waxaan kuu sheegaa romaasiga inuu aad ku anfacaya qaas ahaanna inaa aad ugu qurux badantaa kugu raaxaysanaysid waana romaasiga ugu cajiibsanaa aan sanadkan arko aad u qurux badan yahay runtii saxabaha cusubna ubax jaceylka loo yaqaano bahda mango aad ugu soo canbaxay sidoo kalena sanadkan uu noqdaana aad ugu farxay markaa arkayay enemy runtii ma filayn imtixaanahan oo animation lagu samaynayo laakiin sanadkan markaa aragna aad ugu farxnay dhammaanteena qisadiisana aad u qurux badan yahay saaxiib yaal laakiinse intaa bilaaban waxaa filaa in xalaqadii 21aad iyo sidoo kale 19aad iyo 18aad ka soo daawateen jirarka khulaasada cabaas haddiina aan arkin dhanka description-kan dhigaa ka soo daawada insha Allah sidoo kale waa maxay magacaagan waa soo dhigi doonaa baartugiisa insha Allah isla janaka naftirkiisa soo dhigi doonaa nagu saliy xabiibkeen Muhammad sallallahu alayhi wasallam xalqadeena aad u qurux badan noo bilaaba qisadeena waxa lagu bilaabmay yar argagaxa laga cabsado wajigiisa markii la arko loo magacaabo Sukumi Rentaro waa yar mar walba laga cabsado wajigiisa markii la arko laakiin Rentaro saas ma aha qalbigiisa mar walba dadku waxa qardo wajigiisa iyo madharkiisa sidoo yahay asigoo iska qalbi fiican yahay wuxuu dhigtaa iskuul loo magacaabo Jidori oo wiilal dhigta oo kaliya markii ku dhaha Soomaaliyaabis iskuul dhigta kaliya wiilal bisa lagu talagalay waan wiilal cawaan ee waxan aan baranaynin laakiinse dhankiisa kale waxa ku dhigan iskuul loo magacaabo Kikyo oo gabdhaha kaliya oo dhigtaan gabdhahan marka dhahay waa gabdhaha darajo fiican keenay oo mar walba dhibco fiican keenay mar walba iskuulkaas galaan sidoo kale gabdhaha taajiriinta sidaas wiilasha iyo gabdhaha loo kala saaray ma aqaan sababteeda waxa keenayso laakiin runtii xaliimooyinka aad ay ugu raaxaysteen laakiin saaxiib yalmaha waxa soo xasuusto waxaan u hambaliyahay dhammaan ardayda imtixaanada dawlad galayeen dhammaantiin waan hambaliyay saaxiib yal laakiin hadaa adiga ku dhacdo waxba ka walwalin hadaa niyadaada aad gelisay inaad imtixaanka ku dhacdo noloshan aad ka dhacday marka doqonaa tahay wax kale ku dhumo kuma dhahay doqonaa tahay ha waayo sababta sidaas u leeyahay imtixaan waxa kaga weyn imtixaanka aakhiro kan hadaa ku niyi jabtay sabab nolosha wali waxa waaye baabka in kaga weynta laga yaabaa riyooyinka in aad u weyn marka mar walba rabbigaaga wax soo wax u wada ku kalsoono hanin niyi jabin teeda kale wiilashu waxaan ay sheegay adiga maxaa ay iimaanaysi ay plus maxaa ugu baahantiin adiga si hada ku baasteen alxamdulillah hadaa ku dhacday naftirkeedana alxamdulillah waayo maxaa waa sababta ugu baahantiin waxaas ugu baahday adiga maxaa waa adiga ay iimaanaysi ay plus waxaas gabdhaha lagu talagalay saaxiib yaal anigu Jidori askan haane wax cawaana askan aan soo maahan wax kale manin saaxiib yaal sidoo in miyaa noo sheegay marka sidaas waxaan ugu sheegaa saaxiib yaal aad u fursad badan tahay noloshan markaan iga jabina saaxiib yaal ay qisiin hore uu sii wada muhiimadii marka u soo laaban wixii faarax wixii xaliim markii sidaas loo kala saaray habala kala saaray ma xumee xaliimooyinka saaxiib yaal aad inuu necib yihiin oo waayo wiilasha Jidori ka soo baxayo dhan ma arki karaanba aad u dhibsadan xataa wajiyaashood ma arki karaan saaxiibkeen Rentaro xaggu ku tirsan yahay awalba asaas la dhibsanayay asoo Jidori si dhibsanayay ma la sii arki karo marka ba sheegi kar saaxiib yaal yarka xaaladiisa sidoo noqonaysa laakiin asxaabta asiga Jidori isla dhigto aad isku fiican yihiin ururku asiga la socdo ururkaasna waa ururka kaliya Rentaro mar walba aad ugu farxo farxad oo ka dareemo asigana ku mahadcelin nafsadiisa Sohai Osami Sako Nazusawa iyo Ayato Yorita waana saddexda wiil oo kaliya Rentaro la socodooda aad u jecel yahay maalmaha kamid asagoo galaaska ku jiro Sohai wuxuu leeyahay Rentaro galaaska waa noo dhamaaday hadda maxaa meel masquraaci karnaa ma socon karnaa laakiin intuu hadalka Sohai ku dhahay Rentaro hooyisa ma soo darto waxayna ka dalbatay inuu imaado supermarket cake lagu sameeyo Rentaro marka Sohai uu ku diiday dalabka ka dalbaday markaas isla marka dhaqsiyo u baxay hooyisa u caawiyo ta qoraxda dhicin Rentaro iyo hooyisna waxay leeyihiin maqaayad aad u weyn oo cake doorashada macaanka lagu sameeyo hooyisna waxay ka dalbatay ilaa 6 saac laga gaaro habeenimo inuu marketka ka shaqeeyo customerka imaanayaan oo wax ka gado laakiinse Rentaro wuxuu arkaa wixii ugu yaabka badnaa noloshiisa gabar aad u jabyaro oo intaas soo cake cunayso wah halaano cake kaligeed ma cunaysaaba so cute laakiin si aan marka loo fiiriyo argagax waaya gabadhan Rentaro soo fiirina markii aragta aad u argagaxan runtii iridana si orda ugu baxday Rentarona aad u la yaab runtii laakiin hooyis waxay u sheegtay inay gabadha mar walba habeen walba ay imaato gabadhan waxa lagu magacaabay ay ku dhahdo karo kuwa guri habeen walba markii xiligan xirraba bis ay imaataa ee gabadha maskiin waaya mar walba wax ka dalbata si markaas Rentaro wuxuu leeyahay ha hooy waa sameeyna laakiin gabadhaas way carartay hadii mardaba soo laawayso hooy iga raal noqo qof walba aniga arko way iga cararaa soo mid hadii soo laawayso hooy ani qalad kuma lihi taasna wax igu cusub ma ahan in gabadha iga cararto subaxii iskuulka markuu Rentaro aadaxta wuxuu isweydiinaa xal wixii dhacay wuxuu leeyahay gabadhaas hooyadeed customer u eedaxta argagax ku riday alla maxaa aniga qof xun ahay hadii gabadhaas mardaba soo laawayso ana qaladkeeda leh markaasna Sohai inta u madax wuxuu leeyahay Rentaro ama wada baxnaa laakiin uu ku diiday asiga Sohai wuxuu leeyahay Rentaro maalmaha waxba ka khaldan Ayato Isako dhammaantood sidaas ay dareemayaan markaasna habeenka markii la gaar hooyis si orad u soo orday waxay ku leedahay Rentaro gabadha yareed way
weguriya imaatay waxayna ku rabtaa adiga inay kula kulanto ma aqaan sababteeda rintiro wuxuu leeyahay ma aniga ma gabar i rabtaba oo markaas intay wada kulmaan waxay ku leedahay rintiro igaraal noqo waxa rabaa inaan ku casuumo xal waxa kugu sameeyay fadhi ma wada qaadan karna keega amaanta cuni lahayn waxa rabaa in adiga kugu casuumo rintiro asagoo yaaban intuu fadhiisto wuxuu leeyahay war kaali ani keega aan dukaankiin ah ka gaday ma ani gabar yariis ani siinayso maxaa wada doqonimadan war doqonimo ma ahe gabadha ka aqbal markaasna ayda waxay ku leedahay igaraal noqoshada saa kaga cararay doorashadan hadda aan ku siinayo keegan aan ku siinayna waxa waa raagilin aan ka rabo inaan ka bixiyo ayda sidaas eesna waxay rabtaa in cunto oo markaas rintiro wuxuu leeyahay dhib ma la iska cun aniga waa dheregsanahay markaasna ayda cuntada way cunay rintiro wuxuu dareemaa gabadha in cuntada aad u jeceshahay waana gabar cunto zaid u jecel keega hata zaid u jecel oo soo cute runtii rintiro aad u la yaabay markaasna wigri waxay ku leedahay waa la yaabta soo maahan gabar intaasoo keega keligeeda cunaysa shalay soo maahan rintirona hadalka inuu ka yaqsado dhaha laakiin wuxuu leeyahay haa waa la yaaba haa markaas waxay leedahay waaba ogaa inaa yaabaysid laakiinse qof kale meesha ma joogin an waxaa waa gabar cuntada badan aad u cunaysaa ahay qaas ahaan macmacaankan oo aad u jeclahay tan kale magacaaga ma il wadaagi kartaa an magacayga waa ka gorowagri adina inaa wadaagtaan jeclaalahay markaasna daawadi oo rintiro asoo xishoonayo magaciisa wuxuu leeyahay magacayga waa rintiro ayadana waxay leedahay rintiro soo maahan rintiro maasha Allah ugu dambeynta gacanta ku dhiga magacaaga laakiinse rintiro ilaa hadda wuxuu la yaaban yahay gabadhan maxay tahayne ilaa hadda gabadhan magacayga soo xiiseynaysa maxaa waa gabadhi magacayga maxay ku falay ilaa hadda wuxuu la yaaban yahay rintiro magaca gabadhan soo xiiseynaysid way guriinaysa u muuqata markii uu horeysay rintiro ay aragta ma ahan waxay leedahay in dhowr mad oo dad garab siinaya ku arkay laakiinse magacaaga markii uu horeeyay aan maqlaayo waaye rintirona hoos wuxuu ku leeyahay ilaan saas miya markii uu horeysay ay arkaysa maba ahanba markaasna wuxuu leeyahay ma sababsaas daraadeed miga ordin miya yacni maxaan iga baxsatay waa iga carartay way guriin waxay leedahay oo boqorada dhaaftay waxay leedahay waa markii uu horeeyay wiil aan ka xishoonay sidaas oogeeda marka anu adkeysan waayo markii uu horeeyay dareenkan oo kale ay arkaayo rintirona wuxuu la yaaban yahay dareen maxay tahay gabadhan waxay ka hadloosid maxaa waa hadalkan tan kale aniga gabdhaha waa iga cararaan gabadhan maxaa waxay ka hadlooso ilaa hadda rintiro wuxuu fahmi lahayaa arrinkan gabadhan ay sameynayso kulay booskaaga hadaa ku jur lahay waa wareer lahay koodhe qof dadka dhan wada necib yihiin xataa ragga xataa ka cararayaan macquul ma aan hal qof oo macnaha attention siinayo inuu la yaabi waaye waaba la yaabaabe ayadana waxay taagantahay waa markii uu horeeyay nin rag haddii saan ii fiiriba wadnahayga garaacmaayo oo rintirona ilaa hadda taasoo qaadila ayaa maskaxdiisa markaas kadib labadooda banaanka u baxayaan asigana waa wadiciina laakiinse waxaa dhaca daawaday oo wax cajiib ah rintiro aad u cajabayo runtii ayada waxay leedahay ani waxaa weligay kaama cabsaninba adiga soomidhin waa kaa cabsana waa adiga cabsiga kaga carartay gabadha ani kama baqin mana kaa cararin agtaadana cabsi kuma dareemo rintiro aamin igu kalsoonaaw oo rintiron intuu cararo qolkiisa galo aad u argagaxooya runtii wuxuu leeyahay war kaali mahan maanta maxaa ka dhacay ani yaraanteedoo dhan qof walba iga argagaxaysay rag iyo dumarba inta iskuulka joogin maxaan jirane sidii shaydaankii kalaa layga cabsadaa maxaa waa gabadhan waxayga hor imaatay ani tan weligay maba fahmayiba wadnaha igaraacba markaa arkay sidoo kale agtaada cabsi maka dareema ah waa wax la yaaba weligayga aan igu dhicin markaas rintiro hooyadiisa qolkeeta ugu soo gashay waxay leedahay gabadha waxay cuntadeeda ilowda keegeeda ka dabgeey rintiro markaasna si dhaqsi intuu ugu dabgeeyay markaasna oo gabadha dhexda loo galo liminan dhexda u galeen asagna keegeeda wuu wada wuxuuna rabaa si dhaqsi inuu ka dabgeeyo markaasna wuxuu la kulmaa ayada iyo laba ninoo la ag taagan markaasna wuxuu maqlaa oo wax dhagtiisa owroonay runtii wuxuu leeyahay ninka saan dhana u yartahay gacantiina u yartahay ka waran teeda kale ninkaas halista maxaa ku dab socotaane yaraantiisa dhanu halis ahay wuxuuna dhigtaa iskuul cawaan iskugu imaatay runtii laakiin waxaaba damacsanaayba inaa xoogayar xitaa iscaaj hataa ku samayn karo in adiga ka adeegsado oo kugu adeegsado laakiinse adiga xataa waa ku yaqsoonaa sidee ninkaas argagaxa oo cabsida oo yaraantiisa sidaas dhan ahay ugu dab socotaane adoo sidaan u yar u jabyar teeda kale maba ogeenba asiga hooyadiis inay ka gadaanba oo alla muxuu nacsiya u leeyahay runtii waxaana ku waran ninkaas inaa ka dabharto adaa balaayo kaa qabsan doonta ana arki doontaa runtii haddaa ka dabhari weyso rintona oo afka juuqa gaba runtii maskiinkana aad u iskaga aamusay laakiinse wegru waxay leedahay hadalkiina hadda hadalkaas run yahay maxaana ku dhahday in qofka wejigiisa waxa ku qiimeysay bil'aantanka wejigiisa lagu qiimeeyaa miya weligaa ma isku dayda in la hadasho horta weligaaga ma isku daydeen hal mar inay la fadhiistiin la wadaadashiin mana ogaatiin xaqiiqdiisa wuxuu yahay ninkan wuxuu leeyahay maxaa ku fala nacaskaas inaan la fadhiisto la hadlo qof rabto ma jirtaba oo nacaskaas inaa hadasho xiriir xataa la samayso oo wegurina aad u xanaaqay waxayna leedahay waxaas wax laga xumaado waa inay wejigiisa ku qiimeysay haddaaba weligaa la hadlin aan la soconin xataa way kugu qaldan tahay inaa wax ka sheegto qalbigiisa wixii ku jooga ma ogidba bin'aadanka kadaa wejiga aragtida ku qiimeynaysid hal mar la hadal saaxiib ka dhiga la soco waana arki doontaa wiil fiican inuu yahay markaasna oo rintiro runtii hadalkeeda aad u cajabay markuu maqlay laakiinse ninka wuxuu leeyahay waxba hadalkiisa kuma falaayin casiya hadalkiisa iga jooji markaasna oo rintiro intuu soo galo hal mar ka dhicina gabadha wuxuuna u sheegay haddaa mar dambe meeshaan igu arkay inuu kow ka siinaayo oo ayagana si argagax u cararayaan casiinta wagurin markaasna dhiiga intuu rintiro ka socday arkay zaid u argagaxay markaasna dhiiga tiijkeeda ku tirtiray waxay leedahay waxaan unaa kugu talagalna kugu sameeyey igraal noqo rintiro rabin inay sidaan kugu dhacdo laakiin rintiro wuxuu leeyahay caadi oo waxaan wax lama uma arko ee keegaada qabso sidoo kale weguri igraal noqo waxay ahayd kalsoon markaa dhahda inaan kugu kalsoonaado waxaa ku malaynaya sida dadka kale inaad tahay arkaan waana ku xumahay qof
saan u wanaagsan adduunku sugayo maba u malaynayninba anigana qof saan u wanaagsan daa wax u geystaba aniga isku yeeqsanaa runtii laakiinse Weguri waxay leedahay daawada oo runtii waa wiil walba gabadha ku yaroodo waxayna leedahay aniga weligeyga cabsi kuma arkin mana ku arki doono weligeyga laakiinse Rintaro wanaagaaga aad u badan yahay wanaagaaga u jeedaa kaliya ee xumaantaada uma jeedo oo wallahi caadi maaha Weguri markaasna daawada Rintaro wuxuu leeyahay tan macquul ma ahan weligeyga kama filinayno qof bini'aadam inuu wanaag ii sameeyo xataa asxaabteedaba ahaadaane mar walba wajiga in la diyaariyo mooyay xumaan kale ma filinayno aan wajiga la diyaariyo xumaan lagu sameeyo laakiinse gabadhan dhammaantood way ka daban tahay wanaageeda daacinimadeeda waxeeda oo dhan runtii waxa bilaabay inaan gabadhan oo kala noqdo laakiin Weguri sidee adigoo kala u noqdaane oo baraado caadi maaha runtii Weguri sidee u saameysay Rintaro waana cajiibkii ugu weyn ee soo martay Rintaro waana maalintii ugu horeysay Rintaro zaid isku bedelay isbedelkiisa aad u weyn tahay mana filinayno tan oo kale inay ku dhici doonto daacadnimadiisa Rintaro qof arkay bini'aadan adduunka inuu joogo waa midna zaid cajiib ugu noqotay muhiimadeena marka u soo laabo Rintaro Weguri oo dhaweynaa ilaa trainkoon geynaa markaasna aad uu daciina waana ka soo tagaa laakiinse Weguri waxay leedahay oo runtii boqorad inaa ku tilmaamo way boqorada waxay leedahay saaxiibayaal ani waxaan rabaa mar kale inaan kula kulmo markii keeg aan cunaay laakiin keeg mar walba toogta in aan kaliya cuno marka reer gelinteeda waxaan rabaa in labadii isla cuno waxa garb igu siisay Rintaro waa isla cuni doonaa soo maaha Rintaro oo intuu aad u yaabo runtii wuxuu leeyahay ha waa igu ballantaas waa sameynaa laakiinse waa gabar cajiib ah oo ninka sidaas laga aaminsan dadka dhan isugu arkayeen ba ayadana si kale u aragto ilaa haddana sida uu difaacay ee la yaaban tahay subax markii la gaaray Rintaro oo iskuulka joogo maanta soo dhaqsado wuxuu leeyahay waxaan rabaa awaalka ii sameys inaan wada gudo laakiin Weguri gooma odalkay guda gooma keega soo cuninahay ma aqaan runtii markaas daawada waxaa dhacay wax la yaab dhammaantiin ala cajabayna runtii iskuulka kiigiga geeskiisna Rintaro fiirinaya oo wuxuu arkay Weguri inay dhinacaas ka soo muuqatabo asigna aad intuu arkaga wuxuu leeyahay Weguri maxay meeshan ka qabanayne way iga yartahay gabar yar ajab yareeda ahayd iskuulka sidee kiigiga ku dhiganaysaa gabdhaha dhigtaan macquul ma ahan ma iskuulkii anigu gabdhaha naga necbay ma hadii dhigataaba Weguri oo daawad waa midka ugu xumeed iskuulka xaliimooyinka dhigtaan wiilasha necbaayana dhigataaba kiigiyo waxay noqon kartaa Weguri in aragtideeda isbedeshay Rintaro oo arkayso maadaama Rintaro oo dhigto iskuulka cawaanta Jidori aydan gabdhahaas goobtaas ku sugan macallimiinta xataa dhammaantood iskuulkaas wiilashaas ku sugan waa neceb yihiin aydan necebkaas Rintaro uu qaadi doontaa mise isbedel dhici doonto Weguri aragtideeda ku adkaysanay Rintaro oo arkayso Rintaro oo maskiinka caadi u nijib markuu iskuulka kiigiga ku arkay Weguri ma aragtideeda isbedel mise Rintaro sida u maleynaa ma noqon doonto waa arki doonaa insha Allah waan arki doonaa saaxiibayaal like share ka saaxiibayaha ilowlina sidoo kale saaxiibayaal in muddo inaan maqlaan waa ogtihiin laakiin sidoo kale janaka qulaasada Cabbaas waxaan soo socda tanxanada kala weerarkay tatineska waxa ku soo dagay xagga insha Allah waxa soo dhan waxa ku arki doonaa xalqadeena soo socota insha Allah saaxiibayaal hadda xalqadan ka heshay enemiga aad u qurux badan ee dhanka description kan dhiga janaka linkeyga saaxiibayaal ka gala ka daawada xaq soo degmo ko soo dogo insha Allah uu haayo waana mahsantii saaxiibayaal isku soo noqodkeena aad u faraxsanaa saaxiibayaal iyo taxnaan aad u qurux badan waana mahsantii magacayga Cabbaas janaka Cabbaas Imbaay nabadgelyo saaxiibayaal